sanadkii 1953 gudaha Mareykanka waxaa si qarsoodi ah u bilaabmay barnaamijkii ugu muranka badnaa ee surdoonka casriga ah loona yaqiinay MK Ultra. Mashruucan ayaa hadafkiisa ahaa in la baaro suurtagalnimada in maskaxda bini'aadamka la xakameyn karo, gaar ahaanna dadka la doonaya in loo adeegsado howlgallada sirdoon ee halista ah. barnaamijkan waxaa lagu fulin jiray habab halis badan oo isugu jira daroogooyin iyo habab farsamaysan oo qofka maskaxdiisa la bedeli karo isagoo maskaxdiisana jooginna lagu fulin karo howlgallo. dabagalka barnaamijkan wuxuu si dhab ah u bilowday dabayaaqadii sanadihii 1960meeyadii kadib markii suxufiyiin iyo xildhibaano ku jira Koongareeska Mareykanka ay bilaabeen inay su'aalo adag ka keenaan barnaamijkan. ugu dambeyntii sanadkii 1975 baarlamaanka Mareykanka iyo guddiga uu hogaaminayay Senator Frank Chan ayaa daaha ka rogay in CIA ay burburisay inta badan dukumentiyada MK Ultra, laakiinse nasiib wanaag qiyaastii 20,000 oo waraaq